السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا قارئة ميل كستو جوجتنا أدبان دين سلامية سوماليد محمد ميل كستو جوجتنا أدبان السلامية هذين وناكسن أنتي عصر تاهي أنتي ظهر تاهي كل ولا كل شو دوين هاي أدبان دين سلامية ميل كستو جوجتان مهمة عاوة فيديو كانوا طوبية وحويان الركبة شرة ku ceesha barabogandada aflagaadada dumarka iyo ceebaha iyo cayaha iyagoo dumar la dhashay oo dhaleen oo waxaan ku yiri ay qabaan oo la dhasheen oo dhali doonaan ayaa rag baa jira ku ceesho ku tamariya aflagaadada iyo barabogandada dumarka ragaasan caawa la hadlayaa waxa jirtay saakun baan ku arkay facebooka inaan yaroo aad u caataa oo aragiisba aanu run sheegayn qof baaba wax ka soo sheega oo hadalkiisa markaad ka yaabto cod karnimadiisa ayaaba tiraahdaa waa nina iska daawaa way ka dhacday ama saasaabay ka noqotay laakiin midaad moodayna gaaja ku raagtay codkiisuba cod karnaan ahayn oo hadalkiisuba aanu run sheegayn ayaa wuxuu yiri waxaan ku maqnaayoon xogogaal oo arrin xogogaal aan idin wada in badan aan soo baaray xamda kuwiino intuu nin fankii ka saaray tiri business baan furanayaa sidan iyo sida furu bala ayaan ku maqnaayoon arrinkii baan soo waday horta kaatibaatay baan ku leeyay ceebaha dumarka iyo waxaan ku yiri propagandada u arsaaq doontay intay dadka ilaahay arsaaq ya fataax leeyiin ayaad adigu been iyo kaatibnimo iyo wax maalinta qiyaamada la soo dambeyn doonad barta u furatay qalbiga inaad cayr ka taybaan ku sheegaya adiga iyo nooca kula midkaaba nooca adiga iyo nooca kula midkaaba la kula midka arsaaqka doona nolol maalmeedkooda iyo ceeshkooda iyo arsaaqdooduba ay ku xidhantay halka intay soo fadhiisteen YouTube yar intay samaysteen ka raadinaya nolol maalmeedkii cayiya aflagaado iyo been abuur hablo hore badan baa la wadwaday miiriyaha oo adiga iyo inta noocaagaas hadda ilma xalaal ma oran karo waa ilma xalaal because qof hooyo dhasho gabadh dhashay oo ilma xalaala halka intuu soo fadhiisto been abeer intuu sameeyo qof bini aadan ceebihiisa iyo propagandadiisa ma wadwado ma garatay manaan jeclayn inaan ka soo hadlo si kasto ay u wada jireen ama aniga ay igala hadli jireen ama waxay doonaha soo qoraan kamaan jawaabi jirin laakiin waxaan caaw uga soo hadlay uga soo jawaabay Soomaalidu waxa la yiri dhakaliyay leedo waxay ku maqashaa qaar badan bay saran doona wax xaqiiqo waa run waxaan ku leeyahay qalbigaad fakhri ka tay qalbigaad aad fakhri uga tay ilaahay arsaaq dhaanta beenaha adiga sameynaysa intaad halkaa kamarad hawl u gashay kamarada u soo qaadatay ummad dhan oo ku daawanaysa aad been u sheegayso isku qajil baan ka oran lahaa oo amal intan dhaama raxmaankan ku weydiinay ilaahay ha ku siiyo marka hore intaad soo hawlayso qof beenaad ka sameynayso oo leeday war xaqiiqa kuwa dhageysanayana waxaan leeyahay ilaahay de wax dhaama haydi siiyo intaad kaatibka halka soo fadhiistay aniga iyo habla badan oo sharaf laba wax ka sheegaya adigana amal Allah beenaha iyo de wax la soo dambeyn doono afkan aad buu u fududiyay markaad leedahay qof been abuur ka sameynaysa laakiin maalinu aad u cuslaan doono oo cadeymaheedana aad soo xambaarsanaan doontaan rajeynaya inaynu meel tan ka awood badan aynu ku kulano markaan waxaan leeyahay hadaad beenaha aad wadaan ka waantoobi weydaan ilma xalaalka lama hadlayaano dad badan oo sharaf laba jiro YouTube yeele oo siyaabo kale u isticmaalay laakiin ilma xalaalka anigu lama hadlayo nooca ilma xalaal kuma tilmaami kara anuu yahay waxaan la hadlayaa nooca waxa ku shaqaysanaya hadaad ka waantoobi weydaan wallahi waa leedka shaqay oo gacan bira ayaan iskaga keen qaban doonaa maalmo hore waxa jiray in soo galiyay hees aan waqti hore qaadnay oo mala ku saabsanayd xashiish iyo dawladda hoose iyo adu arrimo saasa marka oo laga dhigay hees cusub xamda kuwiin baa fanki ku soo noqotay sidan anu fanka idinku idimaydaan soo galin idinkana idinkamaan bixin
ma garatay umanay baahnayn ee sababtan baan caawa idin raacinaya inaan ka yare meesha ka soo hadaaqayo haddaan ka baxayna idinkamaan bixin haddaan soo galana idinmaan soo noqon baan leeyahay marka mana garanayo sababta loo soo dhigay wallaahi anuu kooxdii aan ka tirsanaa inankii uu musicianka ahaa iyo intii dee aan isku bahda fanka aan wadahayn waan ogeysay intii heesahayga haysay heestan waqti xaadirka lama soo dhigin YouTube lama soo gelin Axmed Weli waan u sheego wixii heesayga haysay dhulka dhig badankood habla kalaaba qaaday oo heesaha qaaday marka de ma garanayo reasonkay loo soo dhigayo ama loo soo gelinayo ma in baa maxay ka tay heesa kale oo ama xashiishka ama de wacyi gelin nadaafada lama waayino fanaanin way buuxaan igana cod macaan igana qurux badan ma garateen marka waxaan leenahay iyagana aynu kala xishoon ixtiraam iyo wanaag iyo sharaf iyo karaamo aynu soo haynaa dad walaalada iyo baatiin dad ixtiraam iyo karaamo ku kala tagay bay indunay oon marnaba ceed ku farxaya iyo kii fanka dibadan ka ahay awlkaadiba ooyadgeydeen wixii idinkaan afkayga idinka sheegay ayaan isku ognahay aad baan idin salaamayaa aad baan inta i jecel iyo inta i neceb baan halkan uga salaamaya caawa anigu waan idin jecelahay qalbi saliimaan idin hayaa laakiin midkaas oo kale waxay noo ballanay in isku qabano dadka nooca u dhaqmaaya inaad idinkuna fiirsataan maaha wanaagiinaan jecelnay ixtiraamkiinaan idin haynaa ma garateen iga raalahaadaan idin leeyahay haddaan caawa anigoo yara kacsan idin soo galay marka waxaynu leenahay dadkaasi ka waantoobaan arrimaha noocaasa sharaf dhacaa ay dadka ku xagxaganayaan waxba nagu yeeli maayeen laakiin way ku xagxaganayaan dadka oo ilaahay baa uga dhigay ilaahay ma odhan karno ilaahay waxan shaqo kuma lehe shaydaan ayaa dirsaday oo iliyun dadkan cayda dadka aflagaadada dadka waxaasaad lacag ku helaysaan inaad caan ku noqotaan caannimadiina halkii wax wanaagsan laga raadin lahaa ayuun baaba wax xun laga raadinaya wallaahi billaahi tallaahi waa aakhiru samaan wax xilligii la sheegay weeyaan baynu ku jirnaa ilaahay dadka xumaanta samaynaya waxaan ku waxaa dadka been abuurkaa soo samaynayay inta la midkaa iyo inta la macaaba ee raxmaankaynu ka hoos galnay iyagana ilaahay faraj khayr qaba ha u furo السلام عليكم. أد بندين سلام يا أد بندين شعلي حبيب وناكسن. Good night.